السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعن أو وناكسن صاحبة قيمها إي قدرنت إنك مدن ملك سوى جوكتاني وليبا سكة سود نولا سعوتان هالكن يوى سلطانك التيفي وهذا براتن سلطانك التيفي وررسحان أو حقيق دا كوسليسان إي حقيه أو دبي كجرى الصومالي عالمك قطبة حيساها بدن يورك أنكو إيجي دونان وحكم من قنية دولة الشينها أول أوغادي إن بشي لصور دافاي مقدوش أي سوق لسي سدح كونتينر أو هوبا kadib dalab ka yimid taliyaha Yaasin Frey waxaan warka ku eegi doonaa Shiinaha oo kaalin weyn ka ciyaaraya dib u qalabaynta ciidanka qaranka Soomaaliya iyadoo ay xoog saarayso in hubkii ugu muhiimsan la soo geeyay gudaha magaalada Muqdisho haddaba hubkaasi yaa loo qaybiyay ciidanka militariga masirdoonka Soomaaliya mase ciidamo kale si gaar ah u tababaran warka ayaan ku qaada dhigi doonaa qodobada kale ee heena waxa ka mid noqonaya Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland oo heshiis ku raadinaya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kadib markii uu ogaaday inuu ugu dhaqdhaqaaq roon yahay Khayre siyaasiyiinta midowga murashaxiinta mucaaradka waxaan idin soo gudbin doonaa hogaamiye Dani oo Khayre kala hadlay inuu mar kale ra'iisul wasaare qaato haddii hogaamiye Dani uu ku guuleysto madaxweynaha Soomaaliya haddaba ma laga yaabaa inuu Khayre aqbalo rajada hogaamiye Dani maxayse tahay lacagta la duldhiga Khayre haddii dalabkaasi uu aqbalo xog ku saabsan iyo macluumaad dhameystiran oo warbaahinta suldaanka way heshay warka ayaan ku soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxa ka mid noqonaya Fahad Yaasin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo oo la kulmay siyaasiyiin kamid ah mucaaradka iyo xog laga helay xubnaha filla Soomaaliya isku soo dhiibay waxaana warka ku eegi doonaa go'aanadii mucaaradku ay isku raaceen oo noqday hal bacaad lagu lisay iyo Cabdikariin Guuleed Sheekh Shariif oo kuna la qaatay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabaha looga hadlay kulankaas iyo sidoo kale Fahad oo fishiliyay qorshihii siyaasiyiinta midowga murashaxiinta mucaaradka warka ayaan ku soo gudbin doonaa iyo sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa dagaal ka dhacay gobolka Bari xilli wali ay taagan tahay xiisada u dhaxaysa hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ciidanka BSF oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa suldaanka TV si share gareeya muuqaaladeena oo saaxiibada gaarsiiya si ay kula daawadaan like-ta iyo commentiga hanaga iloobin oo qaybta hoose noogu soo qor wararka warbixinada iyo xogaha aynu soo gelinay YouTube-keena adigoo ka aragti dhiibanaya doodeena waxay noqonaysaa oo aan qaybta commentiga ku eegi doonaa haddaba haddii Saciid Dani uu heshiis la galo Xasan Cali Khayre ma sii jiri doonaan siyaasiyiinta kale midowga murashaxiinta mucaaradka maxayse uga dhigan tahay filla Soomaaliya haddii Khayre uu heshiiskan loo soo bandhigay uu aqbalo fikirkada qaybta hoose noogu soo qor Khayre ma qaado doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda 4 sano soo aadan haddii hogaamiye Dani uu la galo heshiiska ku saabsan inay midoobaan tartanka doorashada ay hal meel ka soo wada galaan wararkeena kalena ka soo aragti dhiiba daawada iminkana u diyaar garooba qodobadii markaasi aan dul marayo intaas ka dhameystiran waxaynu ku bilaabaynaa warkeena dawladda Shiinaha ayaa la soo warinayaa in si weyn ay u qalabaynayso ciidanka sirdoonka Soomaaliya Muqdisho ayaa la soo geliyay hubkii ugu badnaa kaasoo laga keenay dalka Shiinaha wararku waxay sheegayaan in taliyaha nabad sugidda Soomaaliya ee kusimaha Yaasin Frey ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad inuu markaasi heshiis la galay sirdoonka Shiinaha kuwaasoo kala hadlay in sirdoonka Soomaaliya u baahan yihiin qalab ciidan hub iyo sidoo kale saanad kale loogu talagalay ciidanka nisa sida markaas xoguhu ay sheegayaan dawladda Shiinaha ayaa bishii la soo dhaafay Muqdisho soo gelisay 3 konteenar oo huba kadib dalab ka yimid taliyaha Yaasin Frey taasoo markaas la doonayay in lagu qalabeeyo ciidanka qaranka Soomaaliya kaali weyn ayuu Shiinuhu ka ciyaaraya qalabaynta ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka sirdoonka Soomaaliya waxa la soo warinayaa in hubkan uu yahay mid fudfudud oo loogu talagalay ciidanka nabad sugidda Soomaaliya in markaas lagu qalabeeyo maadaama ay jiraan ciidamo cusub oo ku biiray nabad sugidda Soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay si gaar ah u tababaran yihiin si qarsoodiina loogu soo tababaray dalal ay ku jiraan Qatar Shiinaha iyo sidoo kale Itoobiya sida xoguhu ay sheegayaan ciidamadan oo aan markaasi xog badan laga hayn Muqdisho soo galay ayaa hubkoodii si qarsoodiya loo soo geliyay gudaha magaalada Muqdisho waxayna ka qayb qaadan doonaan sugitaanka ammaanka Soomaaliya taasoo ka dhigan mid dawladaha markaasi qaar ay si weyn u bogaadiyeen sirdoonka Soomaaliya oo tartan adag kula jira sirdoonada caalamka waxaana la sheegay in dalalka diriska la ee Kenya Djibouti iyo Ethiopia
ay markaasi siraha ka qaataan sirdoonka Soomaaliya kadib markii 4 sano la soo dhaafay isbedel weyn lagu sameeyay sirdoonka Soomaaliya. hay'adaha caalamka ee dalalka reer galbeedka sirdoonadooda ayaa markaasi ka qeyliyay sirdoonka Soomaaliya qaabkii u shaqeeyeen 4 sano la soo dhaafay, waxaana la ogaaday in si weyn markaasi loo tababaray qalab casri ah ay haystaan ciidanka NISA. sirdoonka Mareykanka ee CIA-da la yiraahdo ayaa sidoo kale la soo warinayaa inay taageerayaan ciidanka NISA kadib markii taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo warbixin la yaab la ka siiyay sirdoonka CIA-da Mareykanka kaasoo la dhaceen sirdoonada caalamku qaabka sirdoonka Soomaaliya u shaqeeyo, kaasoo ka dhigan mid warbaahintu aysan ogeyn qaabka markaasi casriga ah ee laga dhigay nabad sugidda Soomaaliya. wararka kale ayaan guda galaynaa hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dan ayaa la soo warinayaa inuu heshiis u soo bandhigay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya kadib markii Dani uu ogaaday in mucaaradka uu uga awood roon yahay ugu dhaqdhaqaaq roon yahay Xasan Cali Khayre iyo Dan ayaa la soo warinayaa inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan in haddii hogaamiye Dani uu guuleysto Xasan Khayre uu qaato ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee 4 sanana soo aadan iyadoo aan la ogeyn dalabkan in Khayre uu aqbalay iyo in kale. xogaha Suldaanka TV oo helaya waxay sheegayaan in hogaamiyaha Puntland uu door bidayo xilligan inuu heshiis la galo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya, xildhibaanada markaasi codka siinayana ay noqdaan kuwa danaya iyo sidoo kale Khayre ay hal meel ka soo wada galaan tartanka doorashada biri ka maalin codadka la isugu shubo siday noo xaqiijiyeen ila muhiim ah oo xafiiska Khayre ka tirsan. lama oga Khayre inuu aqbalay dalabkan iyo sidoo kale in kale. sidoo kale xogaha ayaa sheegaya in lacag fara badan la dul dhigay Khayre haddii dalabkaasi uu aqbalo, waxayna noqon doontaa dhabarjab kale oo mucaaradka ku dhaca haddii Xasan Khayre uu garabkooda ka baxo sida markaas ay ku waramayaan ilaha muhiimka ah ee suldaanka la hadlay. arrintan ayaa la sheegay in ay tahay mid hogaamiye Dani uu doonayo inuu ku dhabarjibiyo filla Soomaaliya iyo mucaaradkaba, Khayrena uu markaasi garabkiisa ka soo muuqdo sida xogaha qaar bay tibaaxayaan. wararka kale ee ayaan guda galaynaa ee dhinaca kale Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa la kulmay siyaasiyiin kamid ah mucaaradka sida xoguhu sheegayaan xoga laga helay kulankan markaasi ee ku saabsan mucaaradka iyo Fahad Yaasin la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa wararku waxay sheegayaan in heshiis uu jiro kadib markii banaanka uu imaaday isbedel weyn oo ku yimid shirarkii mucaaradka ay ku lahayeen hoteelka Jasiira. mucaaradkan oo ku hanjabayay bilooyinkii la soo dhaafay in dawlad gaar ay dhisi doonaan haddii boobka doorashada la jooji waayo ayaa la soo warinayaa in Fahad Yaasin uu kala furfuray kadib markii kulamo uu la qaatay xubno ay ku jiraan Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dawladda ku meel gaarka iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed hogaamiyihii hore maamulka Galmudug. kulankan oo ahaa mid qarsoodi ayaa dhacay waxaana laga helay xogo dheeraad ah. xoguhu waxay intaas ku darayaan in Fahad iyo sidoo kale xubnahan mucaaradka kamid ah ay ka wada hadleen in la dhisi doono xubno kamid ah mucaaradkuna ay markaasi la shaqeyn doonaan filla Soomaaliya balse la joojiyo qalalaasaha iyo sidoo kale dhibaataynta la doonayo in lagu sameeyo doorashooyinka Soomaaliya. wararku siday sheegayaan taliyihii hore NISA ahna la taliyaha qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa heshiisyo cusub la soo galay xubnahaas wallow warbaahintu aysan helin heshiiska rasmiga la wada galay, balse arrintan ayaa noqotay mid hoos u dhigtay heshiiskii mucaaradku ay wada galeen ee ku aadanaa in markaasi tallaabooyin weyn ay qaadaan maadaama looga awood batay dhinaca doorashooyinka ee baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya. arrintan ayaa si weyn looga dareemay shirkii mucaaradka kadib markii xubnihii qaar ay isbedel weyn ku yimid saacado kooban iskana bedeleen mowqifkii hore, taasoo dhalisay in go'aan mid ay wada qaadan waayaan siyaasiyiintii midowga murashaxiinta mucaaradka. ugu dambeyntii gobolka Bari haddii aynu eegno dagaalo culus ayaa ka dhacay gobolka Bari. faahfaahin dheeri ayaana ka soo baxaya iyadoo ciidamo markaasi fara badan ay gaareen deegaano ay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidanka Puntland. dagaal u dhexeeya ciidamada amniga Puntland iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka bilowday Booraleyda ee silsilada Goolis ee gobolka Bari, kaasoo yimid kadib howlgallo ay halkaas ka sameeyeen ciidamada maamulka Puntland. wararka ayaa sheegaya in dagaalo goosgoosa ay maalmihii la soo dhaafo ka dhaceen dhulka Booraleyda ah, waxaana jira khasaare ka dhashay dagaaladaas oo soo kala gaaray labada dhinac. saraakiisha ciidamada Puntland ayaa sheegay in howlgalladaas ay ku burburiyeen saldhigyo ay ku dhuumalaysanayeen maleeshiyaad ka tirsan shabaab sida hadal ku dhigeen oo ku yaala silsilada Goolis, gaar ahaan aagga markaasi deegaanka la yiraahdo Madarshoon oo markaasi ka tirsan gobolka Bari. cutubyo ka tirsan ciidanka markaasi Puntland ayaa la soo wareeyay in dagaaladaas ay ka qayb qaateen iyadoo khasaare xoog badan uu soo kala gaaray labada dhinac. saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV sii share gareey muuqaaladeena warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa.